gudoomiye iyo madanayaal miisaaniyadda waxa loo sameeyay inay wax ka qabato ka jawaabto baahiyaadka dalka iyo xaaladda ku sugan yihiin dadkeena waxaan rabaa oo wax ka oran doonaa dakhliga oo aan awoodda saari doono dakhliga ka maqan maxaa la yidhahdaa qodaraska miisaaniyadda oo lacag adag ah oo isku jiri doona dakhliga dekada berbera ku maqan dakhliga ku maqan hay'adda madaarada dakhliga ku maqan dadka ajaanibta ka shaqeeya lacag markaa ka bacdi ayaan wax ka odhan doonaa loo kharash gareeyey miisaaniyadda mudane gudoomiye mudanayaal dadweynaha reer Somaliland ee ku nool miyi iyo magaalo buur iyo bannaan xoolo dhaqato beeraley iyo kalluumaysato waxay noo doorteen hal ujeedo oo isku mid ah
waxayna saaran waajib isku mid ah waxa laynaga rabaa xilgudasho isku mid ah waa inaynu adeegno dadka reer somalilan daarayaynu ku marnay ilaahay hortiisa wixii ka hooseeyay mudnaanta la siyaana waa ku xadgudub daareed iyo ka hor imaan rabtaanka shacabka waa wacad fur iyo ballanka bax waa inta ilaahay diiday oo dhankaasi dadkeennu waxay ku nool yihiin duruuf nololada adag abaaro biyo la-aan dhaqaale la-aan caafimaad xumo iyo inta ay keento baahida iyo lacag la-aanta dadka inta wax goyn kartaa way yar tahay oo waa fara ku tiris sicirka raashinka iyo nolosha oo dhamina kor ayuu socdaa maalinba maalinta ka dambaysa waxaana loogu talagalay oo adduunyadu ku xakamaysaa arrimaha miisaaniyadda dalkeedii ku xakamaysaa dadku markayna doortay 16 sannadood ku bacdi ee golii hore bedelnay waxay filayeen inaan wax ka qabanno sicir bararka xarkaa goostay ganacsatada heshiiska kuwa dhiigmiirashada dadka danyarta ee aan haddana laga qaadin cashuurihii ku waajibay waxaana ku caddayn doonaa in cashuurihii laga qaadin warbixinta soo socota ku caddayn doonaa cashuurta qaaliga ee dul saaran dadka inta danyarta waxayna ka muuqataa dakhliga cashuura ay ka muuqataa siday danyarta u saaran tahay cashuurta iyo sida u saaran tahay maxaa la yidhahdaa ay u saaran tahay dadka aan lacag kale lacag waxba laga qaadin adeegyada bulshada inaan wax ka qabanna ayaa laynoo doortay cadaaladda garsoorka booliska duruufaha adag ee haysta ciidanka oo ah kuwa ugu mushaarka yar ee uu saamaynta ugu weyn ku leeyahay sicir bararku waxa la siiyaa maantu maxay u goyn karaan mudanayaal lacag baad qaadataan waxay qaataan milyan bay qaataan milyanku muxuu gooyaa maanta miyaanay ahayn inaynu ka doodno miisaaniyadda inagoo ogsoon biyo la-aanta haysata dalka gaar ahaan gobollada bari iyo sidii dadka haraada biyo loogu qodi lahaa miyaanay ahayn inaynu mudnaanta siino sidii hooyooyinka umuraaca ee tooshka lagaga umuliyo aynu iftiin u siin lahayn miyaanay ahayn inaynu ka shaqayno sidii waalidka shaqaysta ee aan dhididkooda waxba u goynin shilinkooda wax ugu jari lahaa mudanayaal iyo mudane guddoomiye horta inagu yaynuu shaqaynaa maynaan wakiiladii shacabka ahayn miyaynaan ahayn wakiillo shacabku doortay oo ku yimid dareenka iyo doonista shacabka jamhuuriyadda somalilan mudanayaal miisaaniyaddu waa inaan ka doontaa inagoo ka fekerayna wax ka qabashada arrimahan aan kor ku soo xusay waxaase biyo kama dhibcaan ah inaanay sinaba sax u ahayn inaynu wakti ku dilno waxaan dan u ahayn dadkiina soo doortay ee inoo haweyna doodayda markaan miisaaniyadda 2022 soo eegay ee rogrogay waxaan halkan mudane guddoomiye mudanayaal idinku soo gudbinayaa doodayda miisaaniyadda waxaana ka rabaa miisaaniyaddu inay ka jawaabto su-aalaha soo socda miisaaniyadda 30 jirsatay ee haddana ilaa maanta aan hargeysan ka biyalaadahay mayna mudnayn inaan dib u eegno oo aan isweydiinno maxay hargeysa waraabin weyday oo u sii waday miisaaniyadda ciidanka qaranka ciidamada kala duwan ee 35% ka ah miisaaniyadda intii dalkani jiray haddana aan ka muuqan nolosha haybadda ciidanka mayna mudnayn inaan jihadeeda dib u eegno silaca ciidanka iyo qoyskooda haysta maanta waxaa ka sii daran ka ku gadaaman tiilka ay dhalaan waayo waxay la tiicayaan gaajo caafimaad xumo waxbarasho la-aan waayo dugsi keliya oo bilaashii ma jiro oo ka ugu yar waxaa laga qaadaa 15 milyan uu qaataa askariga hal qof oo ilmihiisa alla soo kacaa kufay ee iskuulkii ka soo bixiyey xagguu jaamacad ka keenaya waayo jaamacadihii scholarshipka laga helo waxa qaybsada oo kala goosta intayna madaxda intayna xafiisyada waaweyn fadhida iyo tijaarta ganacsatada baa kala qaybsada tase qalbi xanuun kale ee ugu darani waa scholarshipka aan askarta la siinay inankay la soo kacaa kufeen miisaaniyadda 2022 boqolkiiba 250 ka midi mudanayaal waa gunniyo mushaar qofna waxba uma jiraan miyayna ahayn inaynu ka fikirno siday wax ugu jari lahayn sicir bararka aan bakti lahayn miisaaniyadda aynu ku eegno waxaan u gelayaa doodaydii miisaaniyadda dakhliyada maqan waqtiguna waa koolina madaxweynaha magaalada soo gudoomiyaha aad baad u mahadsan tahay doodaydu
حق مدنولة يا مركع تبيستو شرع الحراسات كيسينية وحصوكو بيان وصوكو يوم ما تطلع مدن قدومية ميزانية نقود سيدي وجود وشاقي بقول كيما تضوات يسدد وكستمير كيما دام عشورة بريجان وتوت بيتر واحد وش اللي يساون عشور تاسين يولي تذكر طيب طاية شعب كيسارة طيب حالنا ده عشورته وأيو كيش كتغيير ده سقط أبي عشور تاسين بعضها وحوية وسارد المالية دينا وأمير عبد الله وفروع عشور تاس بريجان كرلو قاضي شعب خلاص لو قدر عشور معيشة كتسمية كسبت جيسي خلينا نتكلم وقتي بيرسيد الشيء أفر كستم أي عشور تلقى صوت على بقول كي والله بيسقاش بقول كي والله بيسقاش لما كستم هذا كلامنا وطب 7.6% أي صوت صارن قبل كمرود الجرح ساحل تقدر عوضا أفر يسقاش 0.5 بقول كي بمثالية تلقى أي صوت صارن سقاك قبل كلامنا 5.5% صوت صارن ويوم على الشعب كله السودان انت كلا سو هدنا صدق وساردودي هيدا كلا سو صار ميزانيه هذا واحد مهمه السينيه الداخليه كم مقن ميزانيه العقد هذا ku dhacda mudadii dalkan ay ilaa shaqeynayeen jeebadaha shakhsiyaadka gaarka ah ee qolahan la rabo inuu umada soo saaro xog ururin aan musbaynay waxaan ku ogaanay in daraska miisaaniyada 2022 ka maqan yihiin dakhliye waaweyn oo kala duwan kuwaas oo kala ah dakhliyadan hoos ku qoran dakhliga hamaha shidaalka berbera dakhliga madaarka cigaal international airport iyo berbera airport ee maalintii dawlad la furay dakhliga dekada berbera oo qaybo ka mid ah maqan yihiin dakhliga jaaniibta dalka ku jooga oggolaanshaha hamaha shidaalka lacagaha ay qaataan hamaha shidaalku wax ka mid ah khidmadaha kirada hamaha dakhliga hay'adaha madax bannaan عشورة شلال كبد يبرنيجا دخل جالس شلال كا هذا حساب تصوص عطاه وعبكو قال يسال عكتو ضل كم قليل لك حقورنا نصبيني وحنكو قال يمكن بشيء ضل كوسوق له شلال ده شريه لبعضن كلهم بتوكيو قلنا هلا جم صور كيني والبيجي الأونافتا يلا بيو طبعا كلهم بتوكيو أو بطولة هو أزوكو أكو أجوك عشور كذا هذا يدخل جبارس طبعا مدرب الدومية مدريال دخل العقد كسب حلاوة شان يلا واتقا كل متكيو كذا سيدات بقول يكون تكون $100 إن كنت تتابع الميزانية عشرة الدولة إن 1,000,000,000 يسقالي سيداتن كن لا بقول يكون $100 إن كنت تتابع عشرة شدالكا نفتلا شيء باركا إنه يكون جرا بقول يشان يلا باتكم $100 أيه لعكتها يسكتين شو بشي مركز يسكت يو تطبيق صوت كون بيجمعوا متكيوب لعكتها وضك كم قرينا وحوالي مركز يسكت ترى كذا وحوالي وشان يطبن مليون سقال بقول يو يلي لكون أو شيء سبلا نتبرش بجبتين muuqaalku ku muujisa shaxdaya garaafka kor ku xusan ayaa sheegayay duundan 360 milyan 783 kun iyo $45.8 oo ahaa dakhli ka soo bixi lahaa hamaha shidaalka berbera ay lunsan yihiin waxa sanadka 2022 miisaaniyada dawladda dhexe iyo hamaha shidaalka iyo wadarta dakhliga ka soo xaroon lahaa hamaha uu yahay sanadka 2022 5 milyan iyo 9,943 dhibixal taas oo cashuur iyo dakhliga shaybaarka shidaalka oo labaduba intay noqon lahaayeen aad ugu hooseeya sida ka muuqata shacabka sare waxa gabi ahaan meesha ka baxday dakhliga kirada haabaha shidaalka oo sida la sheegay ay hadda ganacsatadu u wareegtay haaba gaar loo leeyahay oo ka adeegaya tayo fiican ku dawladda waxa iyaduna xusid mudan in sanadka 2022 miisaaniyada haabaha shidaalka ee berbera ay khasaareen $1 milyan ay gelayso taasoo macnaheedu yahay in aanay xataa bixin karin kharashaadka mushaarooyinka shaqaalaha haabaha waa ishii dhaqaale weyneeda lacagta intaa laga soo saarta ahay ayaa mudane ku doomiyey iyadii deficit ku jirto lacag ka badan xaaladda murugada leh ee ku sugan yihiin hamaha shidaalka
waxa sii murginaya laba arrimood oo kala ah in adduunka 12 milyan oo dollar oo deyna ama shidaalka lagu leeyahay ay ka baxaan qasnada qaranka kadib markii ganacsatada lagala wareegay ay sheegeen in maalgelinta ay ku sameeyeen loo celiyo xukuumadda oo la qaadatay gooray dhamaanaysa lacagtaasina lama sheegin deynu baa soo qoraa maalin walba qodobka labaad ayaa in muddo 2 sano ka hor haamaha lagu wareejiyay shirkad laga leeyahay dalka Switzerland taasoo heshiiskeeda aan golaha wakiilada la keenin sida la sheegay heshiiska fulintu gaarka ula gashay in shirkadaasi casriyeyn iyo ballaarin ku sameynaysa haamaha balse dhaxalkeedu noqday khasaaraha inta leeg ee ka maqan dakhli qaranka sidoo kalena sababay kororka qiimaha shidaalka ee qaybta ka sicir bararka baasana ku habsaday bulshada Soomaaliland waa in heshiiska la kala golaha wakiilada tala soo jeedin mudane gudoomiye mudanayaal waxaa soo jeedinaya golaha wakiiladu degdeg u gudagalaan baarista haamaha shidaalka iyagoo kaashanaya hantidhowrka guud natiijada baaristana lagula xisaabtamayo mas-uuliyiinta haamaha shidaalka iyo wasaaradaha ay khusayso in xeerka maamulka haamaha shidaalka degdeg loo sameeyo lana xaqiijiyo nidaaminta iyo maamulka wanaagsan ee haamaha shidaalka si loogu faa'iideeyo fursada dakhli ay u leeyihiin dalkan in shirkadda traafik guure heshiiskeeda loo keeno golaha wakiilada in dakhliga baarista shidaalka shaybaarka oo ay ahayd inuu noqdo 2,220,000 ay wasaaraddu qoondaysay 920 keliya sida ku cad miisaaniyadda haamaha shidaalka eeg hay-adaha madax bannaan baad ka eegaysaa taasoo macnaheedu yahay in adduun dhan $1,287,480 ay tahay in wasaaradda maaliyaddu ku soo darto oo doraskan miisaaniyadeed ayna hor yaalla maanta in cashuurta shidaalka la dhimo waqtigan sicir bararka lagu jiro iyada oo loo danaynayo bulshada layl daran cunto la'aanta gaajada ee reer Soomaaliland dakhliga madaarka Hargeysa ka maqan madaarka laba mashruuc oo dawladdu ay la soo wareegtay mudanayaal labada mashruuc dakhligoodu kuma jiro oo ahaa kii maxaa la yiraahdaa baakinka iyo kii security lacagtiisa midna kuma jirto miisaaniyadda haddana lacag baa la rabaa in iyadii dib loogu qoondeeyo oo shacabka inta laga jaro meelo kale baahi u noqon lahayd in iyada lagu daro lacagta adagna iyadna waa kala warbixinteeda waa siinaya inaan doonana shacabka inagu noo gasho baaris iyo daal dheer oo aanu gelinay ayaa daaha ka fayday in khidmadihii ammaanka iyo baakinada security baakin fees ay qaadi jireen shirkadaha kala ah Shield Risk Management SRM baa loo jiray Delta oo kala maamuli jiray ammaanka iyo baakinka gegida dayuuradaha caalamiga ee Ciyaar International Airport aanay ku jirin miisaaniyadihii 2019 2020 2021 iyo 2022 adeegyadan ayaa xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi gacan ku hayntooda la soo wareegtay sanadkii 2019 balse aanay soo wareejin khidmadii adeegyada ammaanka oo la qaaday $26 halka baakinka la qaaday inta u dhaxaysa $1 ilaa $3 gaarigii kolba inta gudaha aeroportka gaarigaasi ku jira ayay ku xiran tahay waxa kaloo xusid mudan xeerka takaaliifta ee dhaqangalka ah khidmadda uu waajibiyey qofka rakaabka laga qaado u ahaa $16 balse la kordhiyay ku dhawaad labanlaab iyadoo aanu golo ansixinin oo tahay lacag xaaraan oo ummadda laga qaado muddada 3 sano xukuumaddu adeegyada gacanta ku haysay ee aanay marnaba miisaaniyadda ku soo darin muddada 3 sano waxa qaranka ka lumay adduunkan qiyaas ahaan $12 milyan $4,990 marka lagu xisaabtamo duulimaadyada hoos u dhacay 2022 halka lacagaha baakinka iyaduna maqani noqonayso muddada 3 sano lacagtan $330 milyan $2,658 lacagaha labadan adeeg isku deyntoodu waxay dhantahay $12 milyan $826.8 ay dhantahay lacagta $12 milyan ee shakhsiyaad gacantooda ku jirta ummadayna doorato in loo keeno oo soo baadhna oo guluhu u yeedho waajibaadkiisa oo ka maro lagu soo daro miisaaniyadda leedaha wasiirka maaliyadda inagu shacabkii noo kisho mudanayaal lacagta ayaa gabi ahaanba aan ku dhicin khasnada dowladda dhexe kuma dhacdo balse ku dhacda akowna gaar ay u leedahay hay-adda duulimaadyadu oo ay ku leedahay bangiyada gaarka loo leeyahay walow wasiirku hordhaca buugga miisaaniyadda iyo hadalkiisa golaha labadaba uu ku daray
inuu soo xereynayo lacagaha miisaaniyadda ka maqan oo laga yaabo inuu kuwan ka hadlayay hadna kuma soo darin miisaaniyadda mudane guddoomiye waxaa kaloo dhammaantooda aad u hooseeya khidmadaha mushaaxa hawada navigationska iyo degidda laadinka iyo darista iyo dejinta hadhali commission ee miisaaniyadda ka muuqda waxaa intaas dheer oo aanay xisaabta ku darin khidmadaha laga qaado diyaaradaha hay-adaha caalamiga ee UN-ta EU-da iyo enjooyada caalamiga ee dalka yimaada kala soo jeedin mudane guddoomiye mudanayaal waxaa soo jeedinaya in golaha wakiiladu degdeg u gudagalaan baadhista xigaal international iyagoo kaashanaya haddii dhowrka guud oo lacagta ummadda aynu soo celinno in shirkadda biek ee maamulaysa garoonka diyaaradaha caalamiga ee berbera heshiiskeeda loo keeno golaha haddii aan la keenin oo golo u dalbado shirkadooku warqad u qoro in ugu yaraan miisaaniyadda 2022 dib loogu noqdo oo lagu soo daro 12 milyan ee dollar ee qaranka ka maqan taasoo isku jirta khidmadii adeega ammaanka baakika ee ay qaadi jireen shirkadihii xukuumaddu kula soo wareegtay dakhliga dekedda berbera sidaynu ku ogeyn heshiiskii halkan laga siiyey 2017 mudanayaal saddex lacagood ayaa ku lahay heshiiska dekedda berbera mudane maxamed abiib waxay haddii aad istaado akhri warbixintan oo dhan ma akhriyo guddoomiye waxay ahayd inaad soo qaadayso qodobo kooban oo baad u istaagay lacagta faqad baad u istaagay waayahay iminka 20 daqiiqaad maraysaa 5 daqiiqaad ku haray 20 daqiiqaad ku haray xajiniya guddoomiye aan dhamaysto guddoomiye doodayda golahani inuu qof mudanuhu qori xaq u leeyahay mar uu doodiisa galo waqtiga uu doodiisa ku dhamaysto ka baxaya xeeroosaadka sheegaya taasina waa khudbadda halka laga jeediyay shalaadka tafiiqay 5 sano ka hor ayaa dekedda berbera gacan ku-haynteeda la wareejiyey mudanayaal 3 heshiis baa jiray oo aynu wax ku lahayn boqolkiiba 5 waxaynu ku lahayn faa'iidada ay dekedda soo saarto 5 milyanna waxa weeyaan waa lacagtii kirada dekedda weyn ka beersanna waxaynu ku leenahay marka lacagta guud ayaa beersan laga jariyay taan kharashaadkeedii waxay laga jiray haddaba muddadii 5 sano ay joogtay guud ahaan iyo gaar ahaan sanadka 2022 maxaa miisaaniyadda lagaga soo daray dakliyada kala duwan ee ay dekedda berbera ummadda aynu u shaqayno jeebadaha ummadda lacagtii adkeed ee ummadda caafimaadka loogu dhisi lahaa ee golaha lagu shaqayn lahaa shakhsiyaadka jeebadoo ku dhacda kirada waxaa haba yaraatee miisaaniyadda lagu soo darin kirada 2 sano u horreeyey taas oo wadarta qaranka ka maqan ay tahay 10 milyan oo dollar sanadka 2022 miisaaniyadda waxaa ku jira 35 bilyan taas oo ka yar intii ay noqon lahayd 5 milyan marka Soomaaliland shil lagu sarrifo ee loo isticmaalo sarrifka suuqa xorta maadaama lacagta aynu dollar ahaan ku qaadano ilaa 800,000 ayaa sarrifka la adeegsaday uu lumiyay lacagta kireed dekedda tan beersadka ama royalty fees sanadka 2022 iyo sanadkii hore ee 2021 lacagta miisaaniyaddu way ku jirtaa sabaynu qaadan in laga doodiyo ee kale wali hal model doodi baawta وأصيل المضيعش لو يدينا واسي مضيع مع هذا لعقد كم قد ميزانيته تربيه سكي waxay ku jirtaa sanadkan waa 8 bilyan 710 milyan 399 shilin baa ku jira oo u dhigata 5 milyan 530 $340 celisahan haddii aynu soo qaadano in sanadkii ay noqon lahayd 4 milyan oo dollar waxa maqan 12 milyan oo 3 sano hore ee miisaaniyadda lagu soo diray macaashka iyo khashaaraha shirkadda aynu saabiga ku leeyahay DP World ayaa wax warbixin maaliyadeeda financial report waxay ahayd si transparent loola wadaago ummadda inay khasaartay iyo inay faa'iido maalinta dawladda wasiirka markii la weydiiyey uu ka wareegaystay laakiin maadaama aan xog rasmi ah qolaan loo keenay qolaan wakiilada iyo madruux xaq u leeyahay inuu warbixin u helay uu shacabku u sheegay waxa noo soo baxday markaa gudoomiye maadaama laynala wadaagin xisaab celinta rasmiga ahayd waxaan sameynay xog raadis in shirkadda sanadka 2022 iyo kuwii horeba ay macaashtay isla markaana ahayd sanadkan macaashdan 4 milyan 375 inay Soomaaliland ka hesho macaashka 12 milyan iyo 700 dollar ee ay shirkaddu samaysay muddadii 5 sano ahayd haddii 3 ka mid ay macaashu dhigma ka sanadka 2022 ay samaysay celcelisaa waxa dalka ka maqan 13 milyan iyo 125 dollar
gebagebo isugeynta lacagaha qaranka ka maqan muddadii DP wala shaqaynaysay kirada 10 milyan oo dollar bay naga maqan waa in golaha loo keeno golaha doonu shacabku wakiilnimadiisii uu ku doono tanbeersadka oo 12 milyan ka maqan qaranka iyo shacabka iyo boqolkiiba 5 macaashka ku lahayn oo ay 13 milyan iyo 125 kun oo dollar ka maqan guud ahaan lacagta dalka ka maqan waa 30 milyan 125 kun oo dollar waajib baa inaga saarayna shacabka oo doono lacagta kala soo jeedin mudane gudoomiye waxa soo jeedinaya in golaha wakiiladu degdeg u guda galaan baarista dekedda berbera oo loo diro guddi gaar ah oo golahu wakiisho in dhammaan lacagihii maqnaayeen sanadii hore iyagana la baadin doono in la sameeyo weel xogeed hufan oo ummadda oo dhan kala socon karto waxqabadka iyo wax soo saarka dekedda berbera cashuuraha mudanayaal waxa qosol leh oo cashuuraha dakhliga ka muuqda waa ka baxaya maxamed raalli ah waajib saaran inaan mudanayaasha hadalka u qaybiyo si qof walibana wakti ku filan uu helo 30 daqiiqadood iyo 2 daqiiqada hadlaysay mudane adoo raalli ah waxa weeye imika warbixin iyo faallooyin dheer baad gashay orda iga soo hadalka iga sug in badan baa golobkooda dhegaysanayay waxyaabaha aad ka hadashay in badan oo ka mid ah waxay ka muuqataa soo jeedinta guddida oo ay ka mid tahay dakhliga maqan oo ay dhammaantood codsadeen in lagu soo daro dakhliga waxay ku jirtay way ku caddahay cashuuraha beriga iyo xoojintooda in kasibka laga guuro waxa weeye way ku jirtaa arrintan ahayd maxaa korarka guud ee ciidamada kharashka iyo mushaarku inaanay saamaynin nolosha ciidamada way ka muuqataa sabarka waynu ka hadalnay marka waxyaabahaas oo dhan warbixinta waxaynu u qaybin doonaa warbixinta golaha inuu qaybinana adigoo raalliga gebagebe halkii macalin laga dhigtay shakhsiyaad lagu naasho horta hadalka maxamedow adigu aada uqaali ku ixtiraamaya mudane dooda waynu wada leenahay golahana way u dhaxaysaa qof quri waktigii maanta oo dhan ma qaadan karo cali waxaan sinayaa mudane gudoomiye iyo mudanayaal anoo ixtiraamaya soo jeedinta gudoomiye markaa maad u furaysaa xildhibaanku xaq u leeyahay inuu doono xeer xaqiiqiya kasuul xaqiiqiya laba saacadood afar saacadood gudoomiye doodayda waa wadanaya ninkii caajisaya hadda waxaa ku mudane maxamed waxaan jeclahay mudanayaasha kala aamise horta dhammaan mudanayaasha kala aamise cidda hadalka maan siinin mudanayaasha kala aamise mudane maxamed abiib qaybinta hadalka waxaa iskale guddoomiyaha waxaana xaq siman leh mudanayaasha halkan fadhiya xaq gaar oo qof shaqii leeyahay waan kugu horsiiyey muddo 2 daqiiqaad hadlaysay warbixintana waynu qaybinaynaa waxaan u gudbayaa mudanayaasha kale ibraahim cali shaamac soo gebagebe conclusion gudoomiye waad macsan tahay aynu shuruucda golaha wakiilada aynu isku ixtiraamno waayo mudanuhu 5 saacaad u doodayeen xaq u leeyahay
محمد والباصات الكتومي وحيابا عجيب ميزانية كل واحد كاملة معاش المعاشكة شركة واوين بقارضة يكو حسودة جيا وحكا عشور بدن ضدك الشعب كيو شقيا كحكو ميزانية بدن لعقتي أبكيري عشورتي لقد قادم معاش المعاش شيء بدن ربي خد عطي وحنا كاكي ساتاتوسكا ماذا حسابات كعشورت معاش المعاشكة أو أنا كيسو إن معاش المعاشكة عشورة قراش وشيلو كنت سيستفاد بيا ميزانية هل كتبت كوش غيا أو عشورة معاش قراريكا 1.74 سقنا وكيا ميزانية مسكين بقى مسكين لفورة له ما طيب تبع عشورة لقيت هذا المحل لو قال وش كده سكاتين دي بخارج عشورة مدرب كتومية يا مدرب واحد وصل له أو المرنا بس ماشي قبل إن هيدا تقولين أو أي كم تاعي وسارد ورفافيت وصدق وساردون صدق شقوق بقبض إذا عطى تلفزيونك يضوي ميزانية $1 مليون بوسارد ورفافيت مع مشروع حتى لو واحد كلمة لسه صدق $1 وسوقري والجيش توه غيره لو المصامات وكش يقولوا وسارد ورفافيت وحنقولها وكيل ده وصول جيدنيا صدق لا $1 إلا شرو قول لك يجيو محل هذا إسبتال كبرعون لك يا أما المدر العكا مدرب كتومية مدريات أقل كي نجس صور جيدة مدحتوين وهم معمولا سكالية 2 مليون $. محوق قبطة وقال عنه واجبات كده مدحوينة لمودي وواجبات كنوي لعد وكم ميزانية وكم مدحتوين وكم ميزانية بلاد المرك عقل مدحتوين اللي هو شان إيا لبعدلها يدون أو وحصوصات يتوهوا في نفس وجهة سؤال وشعب اللي قدون ياين إنه عكا كنا قلنا أو أرسلت إنه قواتنا كشقين اللي لابد أخيانا اللي سيسا كتطيقه سعير برد سعير برد يقول بس يوم احنا كتومية وادي كشقين مدري أنا كرسي وكان ماتري إبراهيم علي شبع مدري إبراهيم علي شبع إبراهيم علي شبع السلام عليكم دمان اشتبتوك يا دمان مدري يا شكرا السلام يا
in la sameeyo weelgale hufan oo ummadda oo dhan kala soo cararto wax ka bataya wax soo saarka dekada berbera cashuuraha mudaya waxa qorsoo leh oo cashuura dakhliga ka muuqda cashuura ka baxay هذا الله بالله واجب صار هذا ديس واجب صار أنا مدريات هذا كم غيره سي قف ولمن وقت كفر وهلا صدق دقيقة لو يا الله بكرة هذه الزين على بالله وهو يكون بحين يفعلون كما كثير وقت يسوى على الكيسو إما ما يقولون كل يسميه يلا كان إما ما كمله وأكيد مقاطع سوتشيلين تقول لو أي كم يطلع داخلها مكان وايد ما تطلع صدق يوصل ضرب داخلها وهتوجد ويقعد هاي على ما هذا تيجي أشوفها من بيجي يحصل كسب كل يقولوا وحاول يقول شفتها arrintan ahayd maxaa kor guud ciidamada qarashka iyo mushaarku inaanay saameynin horta ciidamada way ka muuqataa sabarka waynu ka hadalnay marka waxyaabahaas oo dhan warbixinta waxaa loo qaybin doonaa warbixinta golaha loo qaybin doonaa adigo waxaa laga gebagebe halka macaliisho معاش عشوائي ده أصل وسيله كونتيستايل في الميزانية هذا كوش
qorsheeyaa oo ah cashuura macaashka afrika 1.74 sano uu ka yahay miisaaniyadda miskiin baa miskiin la fuulay mataya subax laga qaaday lacag lagu qaadi way shirkadaha isgaarsiinta iyo waxaa lacag mudada gudoomiye iyo mudaya waxaa loo socday oo aan marnaba meesha daba jirin in hay-ado dowladeed oo ay ka mid tahay wasaaradda warfaafintu saddex wasaaradood saddex shaqo ay idaacadda telefishinka iyo dawlad miisaaniyada iyadoo doonanaga wasaaradda warfaafintu maamusha haddana waxa kaalmo la siiyey saddex qolo doonana lagu soo qoray wargeyska wareega dawlad ka shaqeeya kuwa wasaaradda warfaafintu waxaa kulaa wakiilada usoo jeedinaya saddexda qolo doonana la jaro oo la geeyo maxaa la dhahdaa isbitaalka qurcana geeya ama kuda lacag qabaa mudada gudoomiye mudaya aqalkay naga soo horjeeday madaxtooyadu wuxuu maamulaa 19 milyan oo dollar muxuu qabtaa walahan waa waajibaadka madaxweynaha mulki waa waajibaadkeni wey lacag wuxuu ka miisaayay uu ka madaxtooyada miisaayay badanta marka aqalka madaxtooyada lego 25 hay-adood oo wax soo saar iyo kuwa hufiyad isku jira su-aal shacabkeena doonaya inaynu halkaa ku noqono oo aan iska dayno ruwaayada ka shaqeynaysa laba daqiiqada laysisa sicibara السلام عليكم كمان شركتك يجمعنا ورايا سلام يا مدن فريسو وما كلا تجنيس الحاضر حسين فريسو تجنيس الحاضر حسين فريسو توضح محمد